tixanaha labaad ee taariikhda boqortooyada Roomaanka maanta halkan ayay inooga bilaaban doontaa anigoo Cabduqaadir Maxamed ayaa soo saaray tarjumay idilana socodsiinaya saddex iyo 20 sanadood ayaa ka soo wareegatay jabkii ay Carthage kala kulantay Roomaanka imikana Carthage waxa ay doonaysaa argotsi Hannibal Barca oo ah hogaamiyaha guud ee ciidanka Carthage ayaa diyaarinaya weerar ku wajahan Roma laga soo bilaabo aaga ay ka fadhiyeen Spain ayaa waxa ay ka bilaabeen ciidamayn konton kun oo ciidanka lugta ah 9,000 oo fardooley ah iyo 37 maroodi markii ay taariikhdu ahayd 218 ka hor dhalashada Ciise Hannibal iyo ciidankiisa ayaa ka soo kacay Spain Hannibal qorshihiisu waa mid cad waxa uu doonayaa in uu cagta mariyo Talyaaniga iyo gabi ahaanba inuu kaga taqalluso boqortooyada Roomaanka Hannibal waxa uu ka soo socdaalay waqooyiga ciidamadii Roomaanka ayaa isku diyaariyay ka hortagida ciidamada Hannibal si ay isaga daafacaan dagaal Hannibal ayaa go'aan ku gaadhay in uu Talyaaniga ka galo dhinaca buurta Albas waa buurta ugu dheer buuraha ku yaala qaaradda Yurub November 218 ka hor taariikhda dhalashada Ciise Hannibal waxa uu bilaabay fuulitaanka buurta Albin ama Albas boqol iyo 20 mayl oo ay dhex socdeen roob baraf iyo dhagaxaanta dushooda Hannibal iyo ciidankiisii ayaa ka soo daadagtay buurta iyaga oo waayay kumanaan rag ee ka tirsanaa askarta socdaalka ay ka soo kicitameen Spain ayaa qaatay 7 bilood balse waxa uu Talyaaniga cagta saaray isagoo aanan galin wax dagaal ah waxa uu la sameeyay xulufo qabaa'ilada dega waqooyiga Talyaaniga waxa uu jabinayaa ciidamo waliba ee ka hortaga isaga ee ay Roomaanku soo direen 28,000 oo ciidamada Roomaanka ayaa lagu laayay webiga Trebia shan iyo 10,000 oo askar ayaa lagu xasuuqay harada Trasmenia wax ku dhow 2 sano ayuu argagax ku beeray Talyaaniga Roma waxa ay jawaab ahaan u dirtay ciidankii ugu adkaa ee ahaa qayb ka mid ah kaydka boqortooyada 6,000 oo fardooley ah
80,000 oo ah ciidamada lugta ee Roomaanka. labada ciidanba waxa ay u dhaqaaqeen dhanka Keenaya oo ah aag muhiim u ah Roomaanka. Hannibal ayaa ishiisa ku waayay caabuq asiibay, laakiin waxa uu si cad u arki karaa dhufaysyada ciidanka boqortooyada Roomaanka. marka ay taariikhdu ku asteysneed Agost 216 ka hor dhalashada Ciise waxa ay ciidanku ku kulmeen Keenaya oo ahayd aaga ugu adkaa ee boqortooyada Roomaanka. Hannibal waxa uu wataa ciidamo tiro iyo saanad culus. fardoolaydu waxa ay ku mashquulsan yihiin garbaha. halkan Hannibal waxa uu leeyahay sarreyn. waxa uu wataa rag aad u yaqaan ku dagaalanka fardaha ee ka yimid boqortooyada Numidia ee ka arimin jirtay waqooyi galbeed Afrika. waana fardoolayda ugu wanaagsanaa dunidii hore. waxaa bilowday isku dhaca fooda ay isdaraan ciidamada lugta ee labada dhinacba, Carthage iyo boqortooyada Roomaanka. tixanaha qaybta labaad halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. inta aynu ku kulmi doonno qaybta saddexaad ee tixanaha, waxaan idinku dhaafayaa maalin wanaagsan. si aad ula socoto tixanayaasha xiga rukumo channelkan haddii aad ku cusub tahay lana wadaag saaxiibadaada. mahadsanid.